baarlamaanka dowladda Puntland ee Soomaaliya ayaa kalfadhi waxa uu indhawaale uga socday magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. waxyaabaha goluhu ay ka doodayeen waxaa ka mid ah meelmarinta dastuurka cusub ee dowladda Puntland ee Soomaaliya kaasi oo qodobada ka mid ah ay qeexayaan in Puntland loo wareejiyay magaca dowladda Puntland. sidoo kale waxaa qodobada kala duwan ee ka mid ah dastuurkaasi hadda ku meel gaarka u shaqeeya uu meel marinaya arrimaha axsaabta iyo habka doorashooyinka. gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ka mid ah wafdi booqasho ku jooga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa aan ka wareystay bal arrimahaasi iyo waliba halka ay marayaan dastuurka iyo howlihiisii kala duwanaa. bismillaahi raxmaani raxiim. dastuurka cusub ee dowlad goboleedka dowladda Puntland waxaa golaha wakiiladu isku raacay 29 Juun maalinkii la isku raacay uu si ku meel gaar ah uga dhaqan galay dhammaan xuduudaha Puntland ka kooban tahay ku dhaqanka dastuurka dowladda Puntland. marka dastuurkii cusbaa ee dowlad goboleedka Puntland waa dhaqan galay si ku meel gaar ah 29 Juun miya saas weeye uu dhaqan galay 29kii uu golaha wakiiladu isku raacay maalintaa laga bilaabo wuxuu dhaqan gal ka yahay oo bedelay dastuurkii hore 100 qodob ahaa oo lagu bedelo dib u eegista ku jiray oo dhalay dastuurkan cusub oo ka kooban 141 qodob. 29kii golaha wakiiladu markay isku raaceen uu Puntland ka dhaqan galay si ku meel gaar ah kala dambaystuna waxa weeye marka loo qaado aftida dadweynaha laakiin hadda si ku meel gaar ah oo ku dhaqana ilaa aftida loo qaadayo ayuu maalinkaa ka dhaqan galay 29 Juun 2009. waa garta gudoomiye laakiin qodobada dastuurkan waxaa ka mid ah waxaa dastuurkan uu dhaqan galayaa marka aftida dadweynaha la qaado oo dadweynuhu ay codeeyaan. dhaqangalkan iyo marka aftida la qaadayo iyada bal sharaxaad naga kala sii. dhaqangal dhammaystiran waa marka aftida dadweynaha loo qaado laakiin dhaqangalka 29 Juun oo ku dhaqan galay waa dhaqangal ku meel gaar ah. ka waran marka haddii xisbiya hadda laga furo Puntland sharci ma noqonaya? xisbiyadu system bay raacaan marka dastuurka la baasgareeyo oo baarlamaanka uu ka baxay waxaa furan in la diyaariyo sharcigii guddiga doorashada abaabuli lahaa in sharcigiisi la diyaariyo oo hadda gacanta lagu hayo sharcigii ay ku shaqayn lahaayeen guddiga doorashada ee aftida gelin lahaa dastuurka marka golaha wakiiladu baasgareeyo ayaa la magacaabi doonaa guddigii doorashada Puntland oo naftiisu ku meel gaar ah. gudoomiye hadda wareysiga markaan bilaabayna waxaa tiri golaha baarlamaanka dowladda Puntland waxay taas macnaheedu tahay magacii dowlad goboleedka Puntland waa laga gudbay oo dowladda Puntland oo dastuurkan sida uu sheegay loo gudbay. marka waxaana ay ka mid tahay qodobada dastuurkan in magacaas dowladda Puntland la qaato. haddii marka la yiraahdo qodobada qayb ka midana waa ay meel mareen qayb ka midana way waxba u dhiman oo dastuurkan ay ku jiraan see taas noqonaysa. waxaan meel marin ma hayno dowlad goboleedka ayaa muddadii hore iyo dastuurkii 100 qodob ahaa oo dib u eegista lagu sameeyey dowlad goboleedku ahaa dastuurkan dambe wuxuu ku soo baxay dowladda Puntland ayadoo macnaheedu yahay gobolka waa gobolkan mudug oo kale ayaa la oran karaa dowlad goboleed. Puntland way ka baaxad weyn tahay way ka ballaaran tahay in lagu sheego dowlad goboleed 8 gobol oo isu yimid weeye saasaana magacii goboleedka looga guuray oo ay la baxday dowladda Puntland ee Soomaaliya. waa gartay marka haddii dowladda Puntland ee Soomaaliya calan gooni ay yeelatay astaan bay yeelatay taas ma waxay ama ku saabutumaysaa ma u tahay waxay ka go'day Soomaaliya saas maaha. axdiga federaalka ayaa wuxuu sheegayaa statiska dhismi doona waxay yeelan doonaan calan u gaar ah iyo emblem. waxaa ogol axdiga federaalka ah go'itaanna ma aha. qodobada dastuurkana waxaa ka mid ah qodob oranaya Puntland waxay ka mid ahaanaysaa dowlad federaal ah oo Soomaaliyeed qayb ka mid ah ayay ahaanaysaa. marka go'itaan ma aha laakiin
iyadoo calankii jamhuuriyadda Soomaaliya uu dhaxyahay ayaa state kasta ama dowladda Puntland ay yeelanaysaa calaamad u gaar ah oo Puntlandnimadeeda muujinaysa iyo calan u gaar ah insha Allah iyadana gacanta lagu hayaa waagatay guddoomiyada waxaad bal si kooban inoogu sharaxdaa dowladda federaalka hadeer waxay wadataa magaca dowladda midnimada qaran Puntland waa hadeer dowladda Puntland qaadatay magaca marka see isku qaadanayaan labadaas magac dowlad midnimo qaran iyo dowladda Puntland Puntland waa qayb ka mid ah dowlad federaal ee Soomaaliyeed wixii intaa weydaarsan cidii la timaado oo wadata ayay gaar ku tahay federaal baan anagu ka qaybnahay haddii federaal la waayo midnimo qaran loo guuro that means Puntland ma ka mid ah maxaa hadda ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland illa degdega ma fiicna nooma cadda federaalkii in laga insixaabay oo midnimo qaran lagu ekaaday weli proof cad ma hayno laakiin Puntland mana ka hor dhacayso isheena ku haynaysaa waxaana u qorshaysan dastuurkeedana ku qoran inay ahaato qayb ka mid ah dowlad federaal ee Soomaaliya waa gartay iyada marka hadiiba xataa dowladda federaalka magaceeda la wato dowlad federaal ay tahay maxaa hadda wada shaqayn ahaan iyo xiriir ahaan maxaa ka dhaxeeya labada dhinac Puntland iyo federaalka federaalka inta qoorta ugu jirta haatan waxaanu ku eedaynaa wada shaqayn ah dhabahaan wax hadda wada shaqayn oo muuqda oo aanu leenahayna ma jirto haddii sidii ay uga soo guurtay Jabuutina dhibo badan baa ku socday oo dagaallo iyo mashaakil badan baa qabsaday marka eedayn mayno oo nalaga shaqeeyaanna toos u oran mayno wax xiriir hadda aan taaban karro oo ay ku xiran yihiin dowladdan Puntland oo hadda ay la taaban karo aan sheegnana ma hayno iyadoo waxaad ka warantaa arrinta heshiisyada tusaalahaan haddii hadda la gelaya heshiisku aadan dhinaca badaha ama shidaalka oo Puntland ay gelayso kaalinta ay ku yeelayso dowladda federaalka maxay tahay dowladda federaalka ah marka ay samayso dastuur federaal ah oo ummadda loo codeeyo oo dadka u codeynaya ay Puntland ka mid tahay wixii ka horeeya muddadaas dastuur la isku waafaqsan yahay dowladda federaalka ay la imaanayso Puntland ay qayb ka mid ahaanayso dadka u codeeyo ogolaaday inta ka horeysa Puntland waxay ahaanaysaa dowlad daraheeda u madax bannaan waxayna leedahay awoodihii dowlad madax bannaan waayo dadka waxa isku xiri kara oo ka dhaxayn kara wax heshiis lagu yahay oo la isla ogolaaday waxaana u soo horeeya dastuur la isla qaato waana ka dhowraynaa haddana inuu process ku jiro Puntlandna xubno ka mid ay ka qaybgeli doonaan waanu ku rajaynaa marka wixii heshiisyo ah iyo wixii Puntland galayso waa wax iyada u gaara ilaa inta dastuurka la sameeyo federaalku lu kuma yeelanayo saas weey dad badan baa marka la doodo oo laga hadlo arrinta Soomaaliya waxay xalka bidaan oo ay yiraahdaan Soomaaliya waxay xal ku yeelanaysaa oo dhibaatooyinkan ay ku dhamaanayaan in qolo waliba goonideeda u go'do qolo waliba maamulkeeda samaysato waxeeda u madax bannaanaato kadibna iyada oo ama dano ka dhaxeeya dowladaha ama deegaanada deriska la wada raadinayo la isugu yimaado taas u aragtaa fikriyan inay xal tahay oo tusaale ahaan Somaliland Puntland Koonfur Jubbaland saa in loo googo oo hadhowna wixii ka dhaxeeya la isugu yimaado ma u aragtaa xalka Soomaaliya inuu ka mid yahay waxyaabaha Soomaali waa Soomaali dalkeeduna waa Soomaali kala googo'eedana baabaceeda ku jira Soomaali inay mid tahay bay macna ku samaynaysaa cidii hadda go'daana inay go'i karto oo shuruucdu u ogoshahay garan mayno Soomaali waxay ku midowday afti iyo cod bay isugu timid ayadii bayna haatan ku kala tegi kartaa laakiin waxaan soo dhaweynayaa Soomaali wada jirkay macna ku leedahay mana aaminsanin state ahaan iyo dowlad ahaan iyo qof ahaantayda midna Soomaali in la kala googooyo ma aaminsanin mana qabno waa gartay marka iyada xalka Soomaaliya soo halka Soomaaliya waxaan u qabnaa inay Soomaaliya ilaah barado